kulanti wacan asxaabay mar kale maanta waxaan idin wadaa xiriirka ka dhaxeeyo low progesteronka oo hooseeyo iyo implantationka failure wax loo yaqaano. Xiriirkani waa xiriir aad u muhiim ah dhanka uurka markii laga hadlayo. Progesteronka hooseeyo iyo implantation failure-ka waa wax muhiim ah, waa mowduuc muhiim ah oo in aad ka faa'iidaysatid loo baahan yahay. Hana ka dhaqaaqin ilaa ay muuqaalku ka dhamaanayo. Si fiican u dhageyso. Caawo waxaan rabaa in aad maaragtay cilmi ka maqnaa oo mar walba aad isweydiisid aad leedahay waayo aniga aan uur u qaadaynin, waayo ilmahayga mise markii aan uuran qaado oo ilmaha igaga soo laabtaan, waayo aysan igu dhacdaa waxaas iyo idil. Waxaan rabaa in aan cilmiga adiga ka maqnaa in aan caawo aan ku faa'iideeyo ayaan rabaa. Marka muuqaalka dhameysa fadlan meel walba joogtiin, subscribe, like, share kana ha ka iloowina channelka, asxaabtaadina u gudbi batankana gambalaalkana ha ilaawin inaad saaratid si hadhow mar dambe ay kugu soo dhacaan intani in ka badan. Marka laga hadlayo marka in hormoonka progesteronka waa maxay? Marka hormoonka progesteronka wuxuu uu yahay waa maxay? Muxuu ka kooban yahay? Muxuu yahay asaga ahaan? Horka caadada markay kugu dhacayso mise cycle-kaaga caadadu idil waxa uu ka kooban yahay 4 hormoon. Afartani hormoon laba waxa laga soo sii daayaa maskaxda. Waa labada amarka ugu weyn bixiso waaye oo caadada inay dhacdo cycle-kaaga uu saxnaada ah. Labadani waxa loo yaqaanaa FSH-ka iyo LH-ka. Haddaan soo gaabiyo waaye magacoodu uu dheer yahay. Midna waxa la yiraahdaa luteinizing hormoonka, midna follicle stimulating hormoonka baa la yiraahdaa. Marka FSH-kani LH-kani shaqo gaar bay ka leeyihiin waqtiga caadada ay bilaabanayso iyo waqtiga xilligaas ee caadada lagu jiro. Caadadaada waxay u kala baxdaa 4 steps mise 4 stage bay u kala baxdaa. Afartani stage waxa la kala yiraahdaa menstruation phase, follicular phase, luteal phase ay u kala baxaan. Afartani mise stage-yadan aad arkaysiin halkan in kugu sheegayo mid walba shaqo gaar buu leeyahay, mid walbana hormoon gaar baa u xisaaran, mid walbana aad arkaysid howl gaar buu hayaa. Marka labada kale oo hormoon oo ku soo harayso waa estrogenka iyo progesteronka oo loo yaqaano E2 iyo BG-ga. Progesteronka oo la soo gaabiyo BG-ga iyo estrogenka oo E2-ga mise estradiol-ka loo yaqaano. Hormoonadani labadani waxa laga soo sii daayaa ogxaansidaha mise loo yaqaano ovaries-ka. Waa qayb ku taalo hoostaasi hooso oo ogxaantaadii ay ku abuurin Ilaahay ku abuuray oo meesha ogxaanta laga soo sii daayay ah. Mararka qaarkoodna lagugu sheego in ay dhibaato ay ka jirto, laakiinse labadani hormoon amar ayay ku soo baxaan. Aan u laabanna marka dhanka kale aan u lug meeshii aan hadda soo dhaafnay aan ku laabanno oo ah in aad waqtiga caadada ay kugu bilowdo cycle-kaaga maalinka koowaad oo caadada ay kugu bilaabatay ay tahay waxa loo yaqaano menstruation stage-ka. Markuu kugu dhacayo oo caadadii sida ay kugu dhacday waxa loo yaqaano menstruation stage-ka. Stage-kani koowaad wuxuu u dhaxeeyaa gabdhaha way ku kala duwan yihiin. Wuxuuna soconi karaa dhiigani waa waqtiga dhiiga aad ku jirtid, wuxuuna soconi karaa hal maalin, maalinta koowaad ilaa ay 5aad, gabdhaha qaarkoodna ilaa ay 7 in ay ugu qabaystaan ayaa dhici karto. laakiinse stage-kani marka maxaa dhacay? Caadada markaad bilaabaysid waxa kugu dhacay maskaxdaada inay amar ay soo bixiso oo dhanka FSH-ka la soo sii daayo hormoonkani. FSH-ki oo maaragtay caadadu sidii ay ku bilaabato oo maaragtay estrogen-ki oo kor u noqdo. Marka overlapping waxa la ayaa dhacayo. Overlapping waxa waaye FSH-kani markii caadada kugu dhacdo waa la soo sii daynaa, estrogen-kini waa la soo sii daynaa, laakiinse waa xad bay leeyihiin waqtiga ay caadada ay socoto. Marka aad caadada ka qabaysatid FSH-kaagu wuu kordhaya. Marka uu kordho estrogen-ki ayaa kordhaya. Estrogen-ki marka muxuu qabanayaa? Minki ayuu diyaarinayaa. Sidoo kalena wuxuu sameynayaa inaad maaragtay au minkaaga uu diyaar u ka dhigo oo maaragtay caadadii xilliga ovulation-ku uu ku diyaariyo. Isbuuciga labaad markuu ku dhamaado oo caadadaada ay dhamaato waxaad galaysaa ovulation stage-ka. Laakiin ovulation phase-ka markaad gashid
FSH-kaagii ogxaansidahaada wuxuu sameynaya wax loo yaqaano corpus luteum-ka. Corpus luteum-ka arrin gaar buu leeyahay xilligani, laakiinse waxaan rabaa inaad fahantid FSH-ka wuxuu amar ku siinaya ogxaantaada in ay ogxaansidahaada ogxaan halka badan uu sameeyo. Xilliga aad ovulation-ka aad gaartid, FSH-kii wuu yaraanayaa, LH-ka ayaa badanaanaya. Hormoonkii labaad oo maskaxda laga soo sii daynayay ayaa badanaanaya loo yaqaano LH-ka, luteinizing hormoonka. Luteinizing hormoonka markuu u bato, waxaad galaysaa marka progesterone-kii ayaa soo galaya. waxaan kugu soo sharaxaya waxaa waaye xilliga uu progesterone-ku uu soo galaayo, into play uu imaanayo, uu shaqadiisa ay bilaabanaysa, ayaan rabay inaad fahantiin. LH-ka marka uu kor u noqdo, hal ogxaan ayaa soo bixayso oo ogxaansidahaadii ka soo baxaysa. Ogxaansidaha halkani ogxaan markuu soo sii daayo, waxaad noqonaysaa marka in maaragtay ogxaantii ay diyaar u tahay waxa la yiraahdo mena ka imaaday mise biida ninka ragga ka imaaday oo ay ku kulmaan fallopian tube-ka mise tuubooyinka ay ku kulmaan. Xilligani markii la gaaro, haddii ay lacalla progesterone-kii marka kor buu noqonayaa xilligani la soo gaaro oo ovulation-kii la soo gaaro 14 maalmood 15 maalmood ogxaantaada ay diyaar tahay, uur ay diyaar u tahay, biir dhanka ay sugi hayso oo dhanka ninkaada ka imaaday ay sugi hayso, progesterone-kii ayaa soo kacaya marka. Xilligu progesterone-ka uu kor u soo kacayo, waxaad noqonaysaa marka progesterone-kaaga wuxuu kugu push garaynayaa in aad diyaar u noqotid uur qaadis. Lacalla marka biyihii iyo ogxaantii ayaa kulmay, meeshii cunug baa ka dhalmay, progesterone-ka weli high buu ahaanayaa, LH-ka shaqadiisu wuu samaystay, wuu gutay, asaga meeshii uu ku dhamaanaya, shaqadii waxaa qaadanaysa progesterone-ka. Progesterone-kani markuu shaqada qaato, ilaa iyo 10 usbuuc laga gaaraya, lacalla aan dhahno cunugii ayaa abuurmay, progesterone-ka marka shaqa nooc uu leeyahay ilaa iyo 10 usbuuc laga gaaraya uurka. Xilligani progesterone-ka intaad hataa aad qaadin uurka, wuxuu ku diyaarinayaa ovulation-ka markaad soo gaartid, wuxuu ku diyaarinayaa in uu minkaaga uu diyaariyo, uu ka sameeyo in maaragtay uu diyaar uu ka dhiga thin lining uu ka bedelo. Minkaaga marka hore qafiif buu ahaa, wuxuu ka dhigayaa min adag oo maaragtay uu diyaar ah uur qaadista. Sheyga labaad oo progesterone-ka uu ku sameynayo waxaa waaye wuxuu ku diyaarinayaa in haddii lacalla bacrimintii ay dhacdo, wixii meesha iyada ka soo bixi doono, in uu minkani uu diyaar u ahaado inuu uurkii uu reebi karo darbigii minka, inuu uurkii uu reebi karo maadaama cunugii uu darbiga minka isku dhijinayo. Arrinta labaad waxaa waaye arrinta saddexaad progesterone-ka uu ku diyaarinayo waxaa waaye minkaagii ayuu u sheegayaa waxa soo socdo in ay wax foreign ahayn, waxa haddaba soo dhalani doono, cunugaasi soo abuurmi doono, in ay wax foreign ahayn, uuna u tilid gareeyo wax jirkii ka mid ah, uuna u qaato inay waxaana jirkii ka mid yihiin cunugani, ayuu minkii uu ka dhadhacinsinaya. Arrinta kale uu ka reebayo progesterone-ka marxaladani ovulation-ka markii bacrimintii ay dhacdo, implantation-kii uu diyaariyo, minkii uu diyaariyo. Arrinta kale uu ku diyaarinayo waxaa waaye hawshii uurkii ayuu support garaynaya ilaa iyo placentarkii uu ka abuurmayo, oo xilligii placentarka abuuritaankiisa la gaaro, oona shaqadii uu ku wareejinayo placentarka. Xilligani marka wuxuu qaadanayaa 10 ilaa 12 usbuuc ayuu qaadanayaa oo uurka gabadha markii ay ku jirto. Halkaasi waxaa ugu baxaya sharaxaad kooban oo maaragtay in aad progesterone-kii iyo hormoonadii FSH-kii, LH-kii, estrogen-kii shaqadooda oo idil ayaa meesha ugu baxaya. Marxaladda marka hadday dhacdo oo loo yaqaano low progesterone-ka, maxaa dhacaya marka? Low progesterone-ka waxaa waaye wixii hadda aan soo sheegay oo idil, minkii diyaar uma ahaanayo in uu uur qaado, bacrimintii ma dhacayso sababtoo ah copious luteum-kii uu soo sii dayn lahaa progesterone-kii oo idilba ma jiro, maadaama uu copious luteum-kii progesterone yar uu soo sii daynayo, gabadhii uur diyaar uma ahaanayso. Arrinta labaad oo dhici karta waxaa waaye waxa luteal phase defect lahaay ayaa kugu dhici karo. Tanina waxaa keenaya marxaladooyin badan, xanuumooyin badan oo jirkaaga ka socdo iyo intaasi in ka badan. Arrimaha kale oo kugu dhici karo waxaa waaye inuu miscarriage kugu dhaco, uurba aad qaadin, haddaad qaadidna uu ka soo dilmo cunugii. Seed ku garani kartaa marka calaamadaha progesterone-ka oo yar? Sidee aad ku garani kartaa progesterone-kaaga hadduu jirkaaga uu ku yar yahay? Sidee aad ku garani kartaa? Arrinta koowaad aad ku garani kartid
maaragtay inuu progesteronkaaga uu yar yahay waxaa waaye waxa loo yaqaano spottingka. Spottingka marka muxuu yahay? Spottingka sidiisaba waxaa waaye dhiig yar yar oo maaragtay xilligii aad dhiiggina aad kasoo qabaysatay, dhiiggina aad soo martay, caadadii ay kugu dhacday, ovulationka waqtigiisa aad gaartay, ovulation aad helin, wixii temperatureka jirkaaga aad dareemin, cervical mucuskii oo idil aad dareemin. Muuqaalkii hore ayaan ugu soo hadlay ovulationka wuxuu yahay calaamadihiisii oo idil, intani idilba haddaad dareemin oo maaragtay dhiig yar yar aad isku arkaysaa marka xilligan marka la soo gaaro. Dhiiggani marka wuxuu noqon karaa in caadadii waad kasoo qabaysatay, xilliga caadadii waad soo dhaaftay, laakiin waad la yaaban tahay dhiiggan intuu kaaga imaaday. Progesteronkaaga ayaa yar maadaama uurna aad qaadin, dhiiggina maaragtay 5 maalmood markii lasoo dhaafo ovulationkii dhiig yar yar oo caada ahaana ayaad isku arkaysaa. Arrimaha kale aad isku arki kartid waxaa waaye waxa loo yaqaano short luteal phase. Short luteal phase-ka waxaa waaye xilligii ovulationka ayaaba yarba, ovulationkii idil buu yar yahay. Waqtigii maalmihii ovulationka inaad ku jirtay loo baahnaa 13, 14, 15, 16 caadadaada markaad kasoo baxdid dhexda aad maraysid wuu yar yahay, waxba ma dareemaysid calaamado ovulation oo idil iskuma arkaysid, wuuna yar yahay, xilligii oo idil baa kugu yarba. Astaanta kale oo in aad ku garani kartid progesteronkaaga inuu yar yahay waxaa waaye waxaad isku arkaysaa PMS symptomska, calaamadihii oo PMS-ka premenstrual syndrome wax loo yaqaano ayaad isku arkaysaa calaamadihiisi. Waxaad u malaynaysaa hal week ka horeba inay caado ku hayso oo halkaasi hoose ay ku xanuunayso, wareer, anxiety badan, buuq badan, jahwareer badan, adiga PMS symptoms oo idilba inaad dareentid. Sidoo kale waxa kale aad dareemi kartid oo maaragtay la yaab kale waxaa waaye inaad temperatureki jirkaaga ovulationka marka aad ku jirtay waxaad dareemaysay temperaturkaaga inuu kor yahay, qandho inay ku hayso, laakiin maba dareemaysid bakan because ovulationka haddaad ku jirtid iyo haddii kaleba maba inaad ovulation ku jirtidba ma dareemaysid, temperaturkaaga wuu yar yahay. Sidoo kale mararka qaarkood haddii aad hataa uur aad qaadid low progesteronka dartiis inuu ilmihii kaaga soo laabtaan, astaamahaasi iyo intaasi inka badan ayaad ku dareemi kartaa low progesteronkaaga inuu progesteronkaaga uu hoos u yahay cafwan. Marka maxaa keenaya marka progesteronka in uu hooseeyo? Maxaa keenaya progesteronka in uu hooseeyo? Xanuunooyin badan baa keenaya oona ka qayb qaadanaya in ay hoos u dhigaan progesteronkaaga. Xanuumahani sidoodiiba way badan yihiin, waana xanuumooyin qaarkoodood adiga aad isku arkaysid oo kuwa qanjarada la socda, kuwa oo maaragtay lifestyle-kaaga la socda, noloshaada la socda iyo intaasi inka badan. Xanuunka koowaad waxa loo yaqaano anovulation mise poor ovulation wax loo yaqaano. Ovulation la'aanba, ovulation oo idilba inuu kugu dhicin oo maaragtay oo zero aad noqotid. Xanuumo ayaa keenaya marka. Kooskan xanuumo badan baa keenaya oo inay ovulationkaadi uu yaraado oo mise daciif uu noqdo mise in uu maaragtay ovulationka idilba kugu dhicin. Xanuumooyinka ka qayb qaadanayo maaragtay xanuunkani dhibaatadani anovulation la'aanta mise ovulationka idilba inuu daciif u yahay waxaa waaye PCOS-ka, polycystic ovarian syndrome waa midda koowaad oo ka qayb qaadanaysa ovulationkaaga in uu yaraado oo hoos u dhaco. Arrimaha kale oo ka qayb qaadan kara waxaa waaye xanuumooyin dhanka maskaxda loo yaqaano hypothalamic amenorrhea wax loo yaqaano, caadadii idilba inay kaa dhamaato oo caado idilba isku arkin, dhiigo idilba aad isku arkin. Tanina waxay ka imaanaysaa maskaxda oo qayb maskaxda qanjar maskaxda ku yaala oo hypothalamuska loo yaqaano inuu ka qayb qaata ayaa laga yaabaa. Sidoo kale anovulationki poor ovulationkani waxyaalaha kale ku keeni karo oo ka qayb qaadan kara inay ovulationkaadi uu yaraado waxaa waaye chronic stresska. Stresska hadduu kugu bato oo stresskaadi uu zaa'id u yahay oo mid raagi u yahay, waan ka hadalnay muuqaal aan ka sheekeynaya ayaa jirta stresska dhibaatada uu ku lahaan kara jirkaaga. Stresska markuu kor u yahay waxaad dareemaysaa in uu maaragtay waxa loo yaqaano hormoonkaaga cortisolka uu ku darsamayo. Hormoonkaaga cortisolka hadduu ku darsamo, hormoonka prolactinka ayaa ku darsamaya. Hormoonka prolactinka iyo cortisolka ba haddii kor u yihiin waxa kugu dhacaya in ay hormoonadaada caadada ah ay hoos i galaan. Kuwanina waxay keenayaan inay maaragtay caadadii ovulationkii kulli ay ka wada halaabaan. Waxyaalaha kale oo ka qayb qaadan kara inay maaragtay waxa loo yaqaano progesteronkaaga inuu hooseeyo waxaa waaye nutritionkaaga iyo dietkaaga haddii xun yihiin.
nutritionkaaga iyo diet-kaaga xun oo cuntadaada xun waxa aad qaadanaysid hadday liitaan oo wax hoos u liita ay tahay fitamiinada kala duwan ee ku jiraan cuntadaadii maalinka haddaad 3 waqti aad wax cunaysid laakiin ay poor ay yihiin kulligood oo zero nutrient ay yihiin waxaa kugu dhacayso in ovulationkaadii sidoo kale uu yaraado fitamiinada oo halkan ku yar oo poor diet-ka ka imaanaya waxaa waaye haddii aad fitamiino oo nafaqo leh aad qaadanaynin sida vitamin B6-ka, B12-ka, magnesium-ka, zinc-ga iyo maaragtay intaasi in ka badan haddii aad qaadanaynin ama supplement ahaan aad u qaadanaynin ogow inuu progesterone-kaaga hoos u dhacay sidoo kale waxyaalaha kale ka qayb qaadan kara progesterone-kaaga inay hoos u dhigaan waxaa waaye fats-kaaga difintaada haddii ay isku dheelitirneen waxaan ku dhahay difinta waa inaad iska ilaalisid oo difintaad iska yaraysid laakiin difintaadi waa inay noqoto mid dheelitiran oo balanced ay ahaato maadaama hormoonka progesterone-ka asagaba wuxuu ka samaysan yahay difintaada marka waa inaad difin dhammaystiran aad isticmaashid oona jirkaaga difintiis ama saliidiisi ay balanced ay ahaato haddii saliidaada ay hooseyso mise saliidaada ay kor ay tahay dhibaato waaye ogow iyadana maadaama progesterone-kaaga aasaaskiisi iyo maaragtay formationkiisi iyo kulligiiba ma hagaagsamaayo arrimaha kale ku keeni kara waxaa waaye elevated prolactin-kaaga hadduu kor uu yahay hormoonka prolactin-ka wuxuu u xil saaran yahay caanaha laakiin se hadduu uu hoos uu yahay hadduu uu kor uu yahay sababtoo ah waxaad arkaysaa marar qaarkood inaad adigoona dhalin oo maaragtay cunuunahaad haysanin inay caanahaada naas ka imaadaan tani waxaa ku keenaya hormoonkani ayaa kor ah laakiinse elevated prolactin-ka asaga wuxuu ka qayb qaadan karaa progesterone-kaaga in uu hoos u dhigo tanina waxay ku keenaysaa inuu ovulation kugu dhicin implantation failure uu kugu dhaco oo cunugii uu diyaar bacrimintii markay dhacdo hataa minkaaga uu qabani karin uu xajini karin cunugii oo meeshii maaragtay ka abuurmay tanina waxay ku keenaysaa inaad miscarriage uu kugu dhaco dilin uu kugu dhaco arrimaha kale ku keeni kara waxaa waaye jirkaaga hadduu ka jiro wax sokor ah sokorta ama macaanka ama xanuunka macaanka ayagana hoos bay u dhigayaan ama insulin resistance wax loo yaqaano iyo barar iyo infection iyo caabuq hadduu jirkaaga ka jiro waxaad isku arkaysaa inuu progesterone-kaaga uu hooseeyo ugu dambeyntii haddii aad qof da aad noqon haysid 35 sano aad kor aad ka jirtid gabar oo maaragtay 35 sano kor ka jira aad tahay waxaad isku arkaysaa ayadana inuu progesterone-kaaga uu wax yar meesha laga rabay kasoo dib dhaco kasoo hoos dhaco tanina waxay ku keenaysaa inuu maaragtay low progesterone-ka lagugu sheego waxaani idil marka haddaad isku dadartid gabdha qaarkood waxaa jirta ayagana qabo endometriosis waa xanuun ku dhaca asagana minka kanina wuxuu keenaa inuu maaragtay uu keeno xanuunka progesterone-kaaga uu hoos u dhaco waxaan u malaynayaa inaad fahanteen waxa keenayo waxa uu yahay implantation-ka sida caadada ay ku yimaado meesha uu ka soo galo hoosha uu ku leeyahay progesterone-ka uu ku leeyahay dhanka caadada ovulation-ka iyo progesterone-kii hooseeyay calaamadaha aad ku garani kartid xanuumooyinka ku keenayo oo idil waxaan filayaa inaad si fiican u fahantay haddii kale videoga ku cesho muuqaalka ku cesho si aad si fiican u fahantid maadaama hadhow dambe waxa uu ka caawinayaa haddii lagu yiraahdo progesterone-kaaga ayaa hooseeya waxaa rabaa inaad ka fikirtid xanuumadan oo idil astaamihii aan kuu sheegay oo idil adiga inaad isfiirisid horta aad iska bilowdid astaamahani ma qabtaa xanuumadani ma qabtaa wax u dhow maad qabtaa iyo intaas in ka badan waxyaalaha dabiiciga ah in aad samaysid si uu progesterone-kaaga kor ugu soo kaco oo lagu hadhow dambe lagu dhihin progesterone-kaaga wuu hooseeyaa waa maxay marka waxyaalahan waa waxyaalo yaryar adiga aad samaysan kartid waa inaad ku dadaashid marka maadaama waxay ka caawinayaan progesterone-kaaga inuu maintained uu noqdo oo level uu ahaado shayga kuwaad waxa waa stresska wax la yiraahdo iska yaree nolosha easy u qaado wax walba ay tahay noloshaada easy u qaado adiga gacanta kuma haysid maxaad isku wareerinay marka noloshaada stresska ka yaree sababtoo ah stresska hadduu kugu bato adiga gabar ahaana saameyn weyn buu kugu leeyahay maadaama cortisolkaaga baa ku darsamay prolactin-kaaga baa ku darsamay caadadii ayaa kaa qaldamayso waxyaalo badan baa kaa halaabaa haddaad stresses gelisid marka shayga labaad waxaa waaye waxa loo yaqaano iska ilaali exercise-ka ama jimicsiga zaa'idka ah socodka badanka jimicsiga zaa'idka ah waxyaalaha oo maaragtay maxaa la yiraahdaa in aad gym-ka aad tagtid
maanta hal sac ka badan aad saarnaanaysid mashiinta treadmillka lagu ordo ama lagu socdo exerciseka weightliftingka oo zaa'idka ah kulli iska wada ilaali sababtoo ah waxay hoos u dhigayaan progesteronkaaga. arrimaha kale aan kaa rabo inaad ku dadaashid waxaa waaye sidii aad maaragtay ku support garayn lahayd ovulationkaaga. Ovulationkaaga marka sideed ku support garaynaysaa? Waxaan rabaa inaad ilaalisid temperaturekaaga markii aad xilliga ovulationka aad soo gashid waa inaad la socotid temperaturekaaga, waa inaad la socotid cervical mucuskaaga, waa inaad la socotid maalmaha aad ovulationka uu ku imaanayo waa inaad la socotid. Sidoo kale waa in aad qaadatid cunno calories kugu filan waa inaad isticmaashid oo dhanka ovulationka ka caawinayo. ugu dambeyntii iyo shayga ugu muhiimsan oo maaragtay waxyaalaha dabiiciga aad sameyn kartid oo aan kaa raba inaad ku dadaashid cunnadaada. gabar ayaa tahay waa inaad cunno dheelitiran inaad qaadatid. Nutritionkaaga waa inaad ka fikirtid. Waxa afkaaga galaa waa inay wax macno lahaadaan, nafaqo ku jirto oo macno badan ku jiro inay noqdaan oona macdan badan aad ka helaysid. Cunnooyinka way u badan yihiin fitamiinada isticmaal. Haddii aad cunnooyinkani meel laga helayo aad joogin, fitamiinada supplementiga soo gado sida vitamin B-ga inta kala duwan, B6-ka, B12-ka, zinkiga soo gado. Waxaa kalaad soo gadataa magnesiumka, vitamin D-ga, maxaa la yiraahdaa Allahu musta'an calciumka. waxaanoo idil waa inaad isticmaashid. Healthy fatska waa inaad isticmaashid. Fatska saliidda kuwa healthiga ah oo wanaagsan caafimaad ahaan adiga kuwa wanaagsan waa inaad isticmaashid. waxaanoo idil waxay kaa caawinayaan marka waxay soo dhisayaan ovulationkaaga, waxay soo dhisayaan progesteronkaaga kor u soo qaadayaan, caafimaad ayaad ka helaysaa. waxaadna ka helaysaa in haddii aad qof xaas aad tahay inuu uur si fudud aad ku heshid. Implantationkaagana uu ku badbaado cunugaaga darbigii minka uu si fiican ugu dhaga. ugu dambeyntii waxaan rabaa in aad sidoo kale thyroidkaaga aad iska xalisid marxaladiisa. Thyroidka hypothyroidismka waa waxyaalaha ka qayb qaato kow ah progesteronkaaga inuu hoos u dhigo. Ovulationna kuguma dhacayo, uur qaadistiina dhibaato ayay kugu noqonaysaa. waxaa kale aan rabaa in aad maintain garaysid sokortaada. Sokorta waa shayga kale oo kuu keeni kara ama macaanka waa shayga kale oo kuu keeni kara inuu progesteronkaaga uu hooseeyo, uur qaadisna kaaga maaragtay dhibaato badan aad kala kulantid. ugu dambeyntii waxaan rabaa marka sideed ku cabiri kartaa progesteronka, sideed ku ogaani kartaa? waan kuu soo sheegay calaamadihii, waan kuu sheegay sida lagu xaliyo, waan kuu sheegay maaragtay sida uu dhibaatada ee progesteronka uu jirkaaga uu ku leeyahay, xanuunada kuu keeni kara. waxaan idil waan kasoo wada hadalnay, laakiinse waxaan rabaa in aad sideed ku ogaani kartaa marka progesteronkaaga. Progesteronkaaga waxaa la rabaa in uu ka kormaro oo ka sareeyo 20 nano aan kuu soo gaabiyo ng 20 inuu ka kormaro cabirka oo cabirka lagu xisaabaa. haddii uu marka 10 uu ku hooseeyo taasi waxay kuu sheegaysaa inuu progesteronkaaga uu zaa'id uu hooseeyo. haddii uu ka hooseeyo maaragtay 15 ng per ml-ka 15 ng per ml ayaa lagu xisaabaa. haddii uu ka hooseeyo taasi waxay kuu keenaysaa optimum inuu ahayn oo progesteronkaaga uu hooseeyo. mar walba waxaa laga rabaa inaad 15 ng per ml aad ka sareysid. sidee marka lagu xalini karaa progesteronkani oo hooseeyo? waa su'aasha meesha ku jirta. marka haddaad dabiicigii aad kasoo tagtay wixii sameynayay iyo sidii lagu cabir lahay iyo aan kuu sheegay, marka dhakhtarow maxaa xalka ah? marka progesteronkayga wuu hooseeyaa, maxaa xal ah? ugu dambeyntii sida lagu xalin karo progesteronka hooseeyo waxaa waaye markii la ogaado uu 10 uu ka hooseeyo mise 15 uu ka hooseeyo, optimumkii uu ka hooseeyo 10 uu ka hooseeyo, oona la cabiro post ovulation. progesteronka aan ka ilaawin waqtiga la cabirayo waxaa waaye ovulationka marka aad soo gashid ayaa progesteronkaaga cabirkiis la bilaabaa. waxaana la rabaa in la ogaado inuu waqtigani hooseeyo. caadada waqtiga lagu jiro haddii la xisaabo ma wanaagsano. wuxuu ku wanaagsan yahay waqtiga caadada aad kasoo baxdid oo ovulationka aad soo gashid 1 mar, 2 mar, 3 mar, 4 mar ilaa 5 mar la cabiro intaad ovulationka 5taas maalmood aad ku jirtid. haddaad awoodi kartid 1 mar ka badan cabir. hadduu hooseeyo maxaa la sameynayaa marka?
waxa la sameynaa waxa waa dhakhtarkaagii wuxuu kuu qorayaa daawadii lagu sixi lahaa hadduu zaa'id u hooseeyo wuu soo qaadi kor buu soo qaadaya daawooyinkan waxaa dhici karta ilaa iyo waqti inay socdaan laakiinse dhakhtarka siduu asaga go'aan ka gaara ayay noqonaysaa asxaabay waxaan ku gaarnay gabagabadii gunaanadka barnaamijka fadlan waan ogahay wuu dheer yahay muuqaalkani laakiin waxaan rabaa casharka ku jiro inaad ka faa'iidaysatid inaad fahantid hadhow dambo ha noqonin qof meel cidla ah lagu helay fadlan ha kiilowin channelka subscribe like share in kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye